duur wanaagsan dhegaystayaal waxaan ahay cabdirasaaq xaaji catoosh afrikada bari saacaddu waa labadii duhurnimo oo gow ah barnaamijka qodobadan idinkugu hayana waxaa ka mid ah gobolka owdal oo duufaanada dhacaya ay dad badan ku laayeen muqdisho roobab xooggan ayaa ka da'aya dhimasho ayaa jirta magaaladuna way kala xihan tahay boqor buur madow racfaankii uu qaatay kama uusan faa'iidin 3 sano oo xabsi ah ayaa loo jaray maxaabiis Itoobiyaan ah oo dalka Sacuudiga laga soo daayay Manchester United oo xalay afka ciida loo daray haweenka godayna waxay ka cabanayaan ragga qaadcunka ah ee beylihiyay xaasaskooda qofkii markuu xoogsata yahay reer iyo jaadku ma filaan karo xoogga saarana waxa weeyaan jaadka marka jaadki markii guriga waxba loogu geyn waayo qadeen rageen oo suuqa iska wada fadhiistay oo iska mirqaamo oo haweenkeena soo kacaan oo meeshii xuquuqdooda ay ku heli karaan ay yimaadaan danta ku qasabtay barnaamijka waxaa soo saaray Xasan Cali Geelle warkii duhurnimana waxaa diyaar la ah Cabdiraxmaan Xaaji Cadow mahadsanid Catoosh doorashada madaxnimada ee dalka Venezuela ayaa maanta bilaabatay iyadoo uu qaadacay hogaamiyaha mucaaradka isagoo cambaariyay qaar ka mid ah beesha caalamka dad codadkooda doorashadaasi ka dhibanaya ayaa waxaa la filayaa inay doortaan madaxweyne Nicolas Maduro oo lagu eedeeyay in uu dhaqaalaha dalka la degay cunno yari faldambiyeedyada dalka ka dhaca oo kordhay iyo sicir bararka ballaaran ee dalka in uu u horseeday inta uu xilka hayay qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka ayaa xabsiyada ku jira oo ay ka mid yihiin Leopoldo Lopez iyo Henry Capriles iyaga oo lagu nuucay in ay doorashada ka qayb galaan loolanka ugu weyn wuxuu doorashadani ku dhexmari doonaa Maduro iyo ninka ka soo horjeeda ee Henry Capriles shacabka degan koonfurta bari ee Hawaii ayaa looga baaqay in ay degdeg uga baxaan deegaanadooda maadaama dabka foolkaanaha Kiliwa uu ku soo wajahan yahay dabka foolkaanaha oo si xawliya u socda ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda uu gooyo wadada weyn ee gobolkaasi loo maro shacabkuna looga baahan yahay inay gudbaan inta ay wadadu xidhmin wuxuuna foolkaanuhu ilaa iyo hadda xidhay wadada loo marayay tuulada Limpoana Garden iyadoo ay ciidamada gurmadka ay ku guda jiraan sidii ay u furi lahaayeen wadda uu 4 sano ka hor xidhay foolkaanaha halkaa ka qarxay ilaa iyo haddana waxaa deegaanadaasi ka baxay dad gaadhaya 2,000 oo qof haweeney ololaysa xuquuqda haweenka Sacuudiga ay u leeyihiin inay baabuurta wadaan ayaa sheegtay inay boqortooyadu diyaarisay ololo lidii ku ah haweenka Manal al-Sharaf waxay sheegtay in xukun dil ah looga hanjabay baraha bulshada markii ay ugu dambeyntii boqortooyadu ogolaatay inay haweenka Sacuudiga gaari wadi karaan talaabada Manal al-Sharaf ayaa waxay ku soo beegantay toddobaadun kadib markii ay xukuumadda Sacuudiga fasaxday arinta oo lagu amaanay dhaxal sugaha Maxamed bin Salman oo qayb ka ah isbedelada uu Sacuudiga ka samaynayo guddiga dabagala arrimaha Suuriya ayaa sheegay in dagaalamayaasha ururka isku magacaaba dowladda Islaamiga IS ay ka baxeen dhulka ku gadaaman koonfurta Dimashq koox xuquuqda aadanaha Suuriya u ololaysa oo fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay duqeynta xooggan oo ciidamada Suuriya ka geysteen xerada qaxootiga ee Yamruuk iyo meel ku dhow degmada Al-Hajar al-Aswad ay keentay in sabtidii uu meel maro xabad joojin waa sida ay kooxdu sheegtay hase yeeshee saraakiisha Suuriya ayaa diiday wax xabad joojina iyo ka bixitaan toona deegaanadaasi oo ay ku noolaayeen qaxooti badan oo ka badan 100,000 oo Falastiini u badan ayaa waxaa hadda Yamruuk ku sugan 200 oo qof oo kaliya رئيسul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi ayaa shir jaraa'id oo wada jir ah la qabtay wadaadka Shiicada Muqtada al-Sadr oo ah ninka ay doorashada golaha xildhibaanada guusha ku raacday Mr. Abadi wuxuu sheegay in al-Sadr ay ku heshiiyeen in ay dowladda cusub si wada jir u dhistaan guusha Muqtada al-Sadr ayaa loo arkay arrin lama filaan ah balse ma doonayo in uu noqdo ra'yisul wasaaraha dalka maadaama uu soo sharixin wadaadka ayaa Mareykanka iyo Iiraan bay u arkeen cadow halis ku ahaa ugu dambeyn booliska gobolka Madhya Pradesh ee dalkaas India ayaa qabtay 4 nin oo lagu eedeeyay inay muslim dileen dadka Hinduuga ee ku nool goobta ayay diiday in ay wax dambi ah geysteen iyaga oo dilka ninkaasi ku sheegay inuu sababsaday neef lo uu dilay dadka Hinduugana neefka looda dilkiisa ayaa waxay ka tahay arrin aad u weyn maadaama ay qaar ka mid ah dadka Hinduuga ay looda caabudaan sida dadka ku nool gobolka Madhya Pradesh ciidamada boolis oo tiro badan ayaa laga howlgeliyay goobahaas iyagoo laga cabsi qabo inay Hinduuga iyo muslimiinta isku dhax halka ku dhex maro warkii waa naginta Catoosh mahadsanid Cabdiraxmaan Somaliland gudoomiyaha gobolka Owdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa sheegay ilaa in 15 qof ay ku dhinteen daadad iyo roobab dabaylo wata oo ku dhuftay 24 saac ee la soo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka Owdal siiba degmooyinka Lughaye iyo Baki wararku waxay sheegayaan in deegaanada qaarkood beerihii halkaasi ku yaalay saracoodii iyo agabkiiba ay daadadkan la tegeen xaaladihii u dambeeyay ayaa Axmed Cabdinuur wuxuu ka waraystay Axmed Saciid Cige
wararka ka imanaya gobolka awdal magaalo madaxda boorama ayaa imaka la xidhiidhay waxaana ii sheegay gudoomiyaha gobolkaasi cabdiraxmaan axmed cali in ilaa iyo 15 qof intay hubaan ilaa iyo haatan ay ku dhinteen daadad iyo roobab dabaylo watay oo ku dhuftay 24 saacadood ee lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka awdal siiba degmooyinka lughaye ee baki ilaa iyo labadii cishe ugu dambeeyay axmed way jireen dabaylahaasi iyo roobabka wato deegaano ka tirsan puntland iyo somaliland way ku dhufanayeen wuxuu gudoomiyuhu ii sheegay in deegaanada qaarkood daadadku ay la tageen beero fara badan iyo saracoodii iyo agabkiiba mashiinadii kamid yihiin isla marhaantaasina waxaa laisoo sheegayaa oo gudoomiyaha degmada baki maxamed axmed caate uu ii sheegay in beero fara badan ay dumiyeenba oo uu rujiyeyba daadadka soo rogbaday ee kasoo rogbanayay dhinaca xeerta wuxuuna ii sheegay in xoolo badan ay darnaadeen geel iyo ari ha u badnaadeen dabeetanaha ay dhinteen marka laga tago lughaye iyo baki waxaa kaloo jira gobolka Sanaag saylac iyadana in godoon uu yahay oo ay kala xirxiran yihiin iyadoo shalayba dadka saylac laga daadgureeyay in magaaladu ay godan tahay isla marhaantaasina meelaha ku dhaweed qoshi iyo xariirad iyo ceelgaal iyo ay dadku ay joogaan laakiin wax dhimasho lama soo sheegin inkastoo la sheegayo in ay jiraan baabuur ay daadadku qaadeen dooxyadii faraha badnaa ee dhulkaasi ayaa rogmaya dhinaca kale ee gobolka saaxil markaad eegto bulaxaar oo kale iyaduna ilaa shalayto go'doon ahayd ayaa gudoomiyaha gobolkaasi waxa uu ii sheegay axmed cismaan xasan in guryo fara badan uu dumiyey bulaxaar iyo ceel sheekh berbera shalayto waxaa ku dhintay hal qof iyada lafaanteeda waana ladantay biyo inkastoo meelo badan ay magaalada dhexdeeda ay jiifaan marka inahaasi baa jira axmedow dhinacan awdal 15 qof ma meel qoray ku dhinteen mise meelo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan waqtiyo kala duwan bay dhinteen qaarkood waxaa la sheegay 3 qof oo kale in baabuur ay saareen dad la tegay waxaa la sheegay in hal qof uu guri uu ku dumay oo roobkii faraha badnaa ee da'ay dabaylaha watay kuwa kale waxaa la sheegay in qaarkood ay guriga ay ku dumeen qaarkood daadada ay qaadeen badina waa meelo kala duwan oo laakiin deegaanadaasi gaar ahaan tuulooyinka kala duwan ee dhinaca xeebta ee lughaye iyo dhinaca kale oogada ee in baki ee beeralayda weeyaan wax gurmada oo dadkaas fatahaada iyo roobabka ay saameeyeen loo fidiyay ilaa hadda ma jirtaa wararku hadda bay soo dhaceen oo khasaaruhu markii hore ilaa shalayto wuu sahlanaa laakiin imanku bay soo dhacayeen ilaa xalay bay dhaceen in dhimashada faraha badani markaasi gurmad badani wuu jira waxaan la sheegay oo gobolka awdal ka baxay baa la sheegaya in gurmadkii ugu horreeyay ka baxay oo dee wadooyinkiina way xiran yihiin oo daadadba ayaa jira roobkuna wuu shuuxaya intaasi laakiin waxa kaloo aan ogahay in ay shir degdeg oo madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici iyo wasaaradaha qaabilsan iyaguna ay yeesheen maanta marka gurmadku imanku bilan heeda fara badan shalayto way ii sheegayeen dadka kamid tahay oo well vision iyo qaab kale oo UNHCR ay ka tirsan oo iyaguna gurmadkaasi geynayay oo dadka xataa markii laga daadgureynayay ka taakuleynayay magaalooyinkaasi xeebaha ku yaala isla marhaantaasina haatan doonayay inay gaarsiiyaan jirikaano iyo baca iyo waxay hoy ka dhigtaan iyo cuntaba gaarsiiyaan أحمد سعيد عقا كاسي أيو ورمي أحمد عبد النور وربحين سو قرال أهنا بوجينا BBC Somali.com يا كذا عنكرتان سلو وركي سومالي لأن يوم كجرنا مقالة هرقيسة قرصورها محكمة الرفان كي هرقيسة عبدي أحمد حسن عن إراه ذي أياما أنت كنا واقعي فدي محكمة يالتي أو جوب جوج وها بقر عثمان أو محمود بورمدو إن محكمة الرفعانك أي كوحو كنتي بقرك 3 سنة أو حرقة محكمة الرفعانك waxay ka dhintay xukunkii hore ee 5 sano ahaa 2 sano oo maxkamaddu gobolka Hargeysa ay horay ugu xukuntay boqor Buurmadow waxaa lagu xidhay Hargeysa 12 Abriil 2018 oo hadda sanadka aan ku jirno waxaana xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland uu ku eedeeyay inuu 15 Abriil munaasabad dhaqameed uu boqorku kaga qayb galay Puntland uu kaga hadlay khudbad wiiqaysa ayuu yiri waa sidoo hadalka u dhigay gooni isu taaga Soomaaliland iyo ciidamadeeda garsooraha maxkamadda rafcaanka ee Hargeysa Cabdi Axmed Xasan wuxuu sheegay in dembigaasi lagu helay boqorka laguna riday 3 sano oo xarig ah qareenada u doodaya boqor Buurmadow ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn go'aanka maxkamadda oo ay rafcaan geynayaan maxkamadda sare wahagaag Muqdisho magaalada Muqdisho xalay ilaa saaka waxa ka daayay roobab xoogan oo sababay dhimasho iyo waliba burbur gaaray dhulka qaarkiis waxaa sidoo kale joogsaday isu socodkii magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa hadda qadka si toos ah ugu jira oo noo haya wararkii ugu dambeeyay ee roobabkaasi iyo qasaarihii ka dhashay Ibrahim haye cabdirasaaq roobabtan iyo xalay ka daayay magaalada Muqdisho ayaa gooyay wadooyinka muhiimka ah iyadoo aad u yaraaday dhaqdhaqaaqii gaadiidka dadweynaha oo inta badan istaagay sidoo kale imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ayaa la hakiyay maalin uun kadib markii dhowr iyo 20 ay u fariisteen imtixaankaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan oo la hadlayay wakaaladda wararka u faafisa Soomaaliya ee Soona ayaa sheegay in roobabka daaya dartood la hakiyay imtixaanka
roobabka ka da'aya magaalada ayaa saameynta ugu badan ku yeeshay boqolaalka kun ee dadka gudaha ku barakacay oo aan haysan hoy wanaagsan oo ay ka geli karaan dadadka soo rogmanaya. xerooyinka dadka gudaha ku barakacay ee ku yaala gudaha iyo daafaha magaalada ayaa dhammaantood ay biyo galeen. xalay roobabku waxay ahaayeen roobab xoog leh ilaa saaka waa berigii, inkastoo tan iyo saaka xoogaa aad moodo in marna uu istaagayo marna uu hadana dib u bilaabanayo. daadad ka dhashay roobabka sidoo kale waxa ay keentay inay biyo galaan xaafadaha isku raranta, taasoo qoysas badan ku keentay in xalay oo dhan ay guryaha dhex taagnaadaan oo ay qaarkood isku dayaan inay biyaha ka saaraan guryahooda. wadooyinka waaweyn laamiyada ah dhammaantood biyo ayaa fariistay. wadooyinka kale ee xaafadaha qaar wadooyinkii hore aan la dayac tirin way dumeen. gawaari badan baad ku arkaysaa wadooyinka ku jirta oo ku go'ay ama ku halaabay. marka xaaladaas ayaa weli ka taagan magaalada muqdisho. Catoosh ibraahim aad baad u mahadsantahay. waa hagaag, xaaladahaasi wixii ka soo kordhana waad maqli doontaan. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. hagaag, halka weli aad nagala socotaan waa BBC. barnaamijkii duhurnimo bartanka kaga jirnaa. qodobada soo socda waxaa ka mid ah maxaabiis reer Itoobiya ah oo dalka Sacuudiga laga sii daayay. isla Sacuudigana haweenayda Sacuudiga u dhalatay ee u ololeynaysay in dumarka loo ogolaado inay baabuurta kaxeeyaan ayaa sheegaysa inay socdaan olole looga soo horjeedo kuwa u dooda xuquuqda dumarka Sacuudiga. Manaal al-Shariif ayaa hadalkan sheegtay kadib markii la xiray 7 qof oo ololeyaal ah oo rag iyo dumarba isugu jira. tafaftiraha BBC ee arrimaha Carabta Sebastian Asha ayaa warkan ka soo diray. Manaal al-Shariif oo ku sugan dalka Australia ayaa waxa ay sheegtay in ay soo gaareen hanjabaado ka dhan ah nafteeda oo lagu godinayo in la dilayo kuwaas oo loo soo mariyay internetka. waxayna sheegaysaa in ay rumaysan tahay in arrintaasi ay tahay mid laga soo shaqeeyay. waxay hanjabaadahaasi la xiriirinaysaa wixii dhacay markii iyada iyo howlwadeenno kale ay bilaabeen olole ay ku doonayaan in dumarka dalkaasi Sacuudiga loo ogolaado in ay baabuurta kaxeeyaan. arrintaasi oo la rajaynayo in bisha soo socota ay suurto gasho. hase yeeshee xariga loo geystay 7 ka mid ah howlwadeennada oo ay ku jirto gabadha caanka ah ee Luciana Hathulul ayaa shaki gelinaya isbedelo aad loo buunbuuniyey oo la sheegayay in dhaxal sugaha dalka Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan uu wado. waxaa arrinta uga sii daray oo mugdi sii geliyey warbixin rasmi ah oo ka soo baxday dowladda oo lagu sheegay in howlwadeennadaasi 7 ah ee la xiray ay yihiin kuwa dalka ku caasiyey oo u shaqaynayay quwado ajaanib ah. hay-adda xuquuqul insaanka Amnesty International ayaa xarigooda cambaaraysay waxayna ku tilmaantay inuu yahay olole la doonayo in lagu dhibaateeyo dadkaasi. maasanid xasan cali geelle. hagaag, dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in dowladda Sacuudiga ay aqbashay sii deynta kumanaan maxaabiis ah kuwaasoo la sheegayo kuwii ugu horreeyay inay xalay ka degeen magaalada Addis Ababa. waxaa weli xabsiyada Sacuudiga ku xidhan boqolaal kale oo reer Itoobiya oo halkaas shaqo u tagay. wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikem oo mar sii horreysay warbixintan jigjiga ka soo diray. maxaabiis siyaabo kala duwan oo u xidhnaa waddanka Sacuudiga muddooyin kala horreeyayna waddanka Sacuudiga u xidhnaa oo Itoobiyaan ah ayaa labada waddan waxay isku afkarteen in 1,000 maxaabiis la sii daayo. arrintaas waxay ka dambeysay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya oo booqasho hawleed ku tagay waddanka Sacuudiga marka wuxuu la kulmay boqorka waddanka Sacuudiga. waxayna isku afkarteen 1,000 maxaabiis in la sii daayo. maxaabiistaas 690 ka mid ah ayaa shalay soo gaadhay gegida diyaaradaha ee Boli International Airport. waxaanu ku soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Dr. Aklilu Kabra Mikhail. maxaabiistaas hadda 310 way ku dhiman yihiin waddanka Sacuudiga, waxaana la rajaynayaa isbuucyada soo socda inay soo gaadhaan waddanka. maxaabiistaas xidhan ee waddanka Itoobiya ka xidhan waxaa ka mid ahaa ninka ugu taajirsan waddanka Itoobiya Sheekh Maxamed Calaamudiin. ninkaas oo haystay dhalasho waddanka Sacuudiyana ayaa hadda ka hor boqortooyadu waddankooda ku xidheen. ra'iisul wasaaruhu shalay mar uu hoolka weyn ee Millennium dad badan ugu khudbeynayay ayaa wuxuu sheegay markii aan sii socday waxaan rajaynayay inuu soo raaci doono ninkaas taajirka Sheekh Maxamed Calaamudiin, laakiin siyaabo kala duwan awgeed ayuu soo raaci waayay. waxaan rajaynayaa buuri in xilliyada soo socda la soo dayn doono isla markaana waddanka Itoobiya uu soo gaari doono. sidoo kale dadku waxay soo dhaxmarayaan waddanka Imaaraadka oo maalmaha soo socda ra'iisul wasaaruhu laga yaabo inuu booqdo maxaabiis iyadana ku xidhan oo Itoobiyana in uu kala hadli doono waddanka Imaaraadka. arrintan ayay dadka Itoobiyaanka aad u soo dhaweeyeen. Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikem oo dhawaan warkaasi jigjiga ka soo diray ayuu ahaa.
isla Itoobiya intaanan ka bixin deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Goday ayaa waxa lagu soo warramayaa in arrimo fara badan oo qoyska ah ay inta badan xaliyaan maxkamadaha shareecada ee dowlad deegaanka Soomaalida ay leedahay. maxkamadan oo si gaar ah diiradda u saarta 10 arrimood oo la xiriira qoyska ayaa waxyaabaha ugu badan ay xaliso waxa kamid ah dhanka furiinka. Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam oo dhawaan booqasho ku taagay degmada Goday ayuu wuxuu arrimahaasi ka waraystay Maxamed Shariif Maxamuud oo ah gudoomiyaha maxkamadda shareecada islaamka ee degmada Goday. maxkamadda waxay qabataa wax la yiraahdo xeerka qoyska oo ka kooban ilaa iyo 10 arrimood oo uu ka mid yahay guurka ama nikaaxa, furiinka, nafaqada, dhaxalka oo iyadana ninka markuu xitaa magta dhaxalkeeda waa dhaxal ninkii la dilo waa dhaxal weeyaan iyada laf waan ka shaqeynaa. waxyaabaha idinku dhibka badan marka maxaa ka mid ah? waa nafaqada weeyaan oo haweenkii ay ayagana sabirkii ku yaraaday, raggiina uu maaragtay xaqii dhaqaalihii dantii ay fara badatay. haweenkii hadda ka hor guriga uu joogi jiray ee la iska xukumi jiray ee xafiisyaal loo sameeyay ay danahooda kaga hadlaan, berigii hore intay wax kasta loo geysto waxba la siinin bay iska dulqaadan jireen iska joogi jireen. hadda laakiin markay xafiisyo xuquuqda haweenka u dooda la sameeyay, maxkamadii shareecada oo biilkoodii iyo nafaqadoodii iyo daryeelkoodii iyo wixii oo dhan u doodaysa la sameeyay, guriga ay ka soo baxeen oo xafiisyadii midaan qof kasta wixii ka maqnaa inuu raadsado sidiisa ku helo ku talagalay. arrintaas siyaabo kale meena dhib u keenin oo qoysku inuu durba burburo kale. horta way jirtaa oo burburka isna wuu badanayaa mar haddii maxkamad la iskeeno ceebaha oo dhan baa banaanka imanayo oo in ma aragtay uu burbur yimaado waa suuragal, laakiin qofka waxa erinaya waa baahi oo kaliya. baahidaasi 10% baa waxay yihiin wax ayaga raga diidan, laakiin inta kale waxay leeyihiin dhaqan weeyaan waxay leeyihiin. dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan haweenka waxay ka soo cararaan qofkii markuu xoogsata yahay reer iyo jaadku ma filaan karo. waxa uu xoogga saaraan waxa weeyaan jaadka. markii guriga waxba loogu geyn waayo qadeen rageen oo suuqa iska wada fadhiistay oo iska mirqaamo oo maaragtay haweenkeena soo kacaan oo meeshii xuquuqdooda ay ku heli karaan ay yimaadaan danta ku qasabtay. marka inta badan calacalka ugu badan ee dumarka xaggiisa ka yimaada waa biil la'aan, sababtuna waa jaadka weeye sababtuna waa biil la'aan. ubadkiiba hoostooda ku ooyo sabirka hadda meel ay ku hagaagaan may garan jirin, laakiin hadda waxay heleen meel ay ku hagaagaan oo looga qaado wixii u baahnaayeen. marka saasay maaragtay hadda xafiisyada ku yimaadaan oo dadkan faraha badan aad aragto xuquuqda ilmihii iyo teedii bay raadinayaan, xishoodkiina waa iska yaraaday kulley. gudoomiye dadku waxay isweydiin karaan lamaanayaasha isku dhiban ee guryaha wada jooga inta badan ma dumarka uunbaa soo cabta awey raggii? inta badan mar hadday noqoto waxa laga cabanayo uu biil iyo nafaqo iyo nidaamkaas uu yahay dhaqan la'aan haweenkay ku timaadaa horta, laakiin waxa weeyaan ragga 10% meelahaasaa soo cabato. inta badan marka raggaas maxay ka cabtaan? inta badan waxay ka cabtaan ayaga laftoodu inay naagti khayaar leedahay iska socoto, inaan la canaanan karaynin, inaan la soo celin karaynin, waxay doonta iska samaynayso. ganacsi bay iska noqdeen haweenkii, marka sida ilmihii adiga iyagana ku canaantaan baaba maaragtay hadda ka jirtaba. marka masaasuu ku soo dacweeyey? saasuu ku soo dacweeyey inay naagta iyo ninkeeda ay isu samraan, ciyaalkooda wax la baro, qof kastaba qofka kale xuquuqdiisa uu eego. Maxamed Shariif Maxamuud oo ah gudoomiyaha maxkamadda shareecada islaamka ee degmada Goday. Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam ayuu u waramayay aan Facebook u galo qodobkaasi warbixinta Goday ku saabsan. Maxamed Saciid qodob wuxuu joogaa Galkacyo wuxuu yiri cabashada ka ssoo yeertay haweenka magaalada Goday ee la xiriirta ragga qaad cunka ah waa mid jirta. qaadkuna wuxuu noqday mid kamid ah masiibooyinka ku habsaday Soomaalida qarnigan 21aad, dhaqaale ahaan, mas'uuliyad ahaan iyo weliba bulsho ahaan. wahagaag halka weli aad nagala socotaan waa BBC. haatanna ciyaarihii shalay waxaa dhacay ciyaartii FA ee ugu dambeysay Manchester United iyo Chelsea ayaa isqaabilay. dhigaha laga garaacay Manchester United oo 1-0 ayaa looga badiyay koobkiina. waxaa qaaday kooxda Chelsea ee uu leeyahay macalinka Talyaaniga Conte. Mourinho macalinka leeyahay shayaadiinta gudgududan ee Manchester United wuxuu sheegay inay ka ciyaar fiicnaayeen kooxda Chelsea balse uu nasiibku ka hiliyay. goolka waxa uu dhaliyay Hazard oo Belgiumka u dhashay, sidaasayna koobkii kula tagtay. Allah ii darana warkaasi. wahagaag haatanna baafinta maanta waxaa si wada jir ah stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Samiira Cabdullaahi Jaamac iyo Caasho Saciid Xasan.
mahadsanid Samiira. Baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Xamdi Aadan Maxamed oo joogta xerada qaxootiga ee Duuste Baydhabo. Waxay baafinaysaa Xaawo Aadan Maxamed. Waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Itoobiya 1992. Haddaba haddii ay maqlayso Xaawo ama bii jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Xamdi Aadan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baydhabo. Maxamed Janaale Axmed oo jooga Baardheere waxa uu baafinaya Axmed Xasan Garacool. Waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadii 2011. Haddaba haddii uu maqlay Axmed Xasan Garacool ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Maxamed Janaale Axmed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 2566624 Dhaayo ku soo cali oo jooga Baydhabo waxa uu baafinayaa Suleeqa Siid Nuur Xuseenow. Waxa ugu wardambeysay 2017. Haddaba haddii ay maqlayso Suleeqa Siid Nuur ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Dhaayo ku soo iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baydhabo. Tamiina Axmed Yuusuf oo joogta Luuq waxa ay baafinaysaa Ciise Yuusuf Cadde. Waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Tanzania sanadii 2014. haddaba haddii uu maqlay Ciise Yuusuf Cadde ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Tamiino Axmed Yuusuf iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere. Cali Iimaan Aadan oo jooga Baydhabo waxa uu baafinayaa Sheekh Cali Aadan Cabdi. Waxa ugu wardambeysay 1999. haddaba haddii uu maqlay Sheekh Cali Aadan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cali Iimaan Aadan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baydhabo. Ayub Amareer Cali oo jooga Luuq waxa uu baafinayaa Isaaq Amareer Cali. Waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2016. haddaba haddii uu maqlay Isaaq Amareer Cali ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Ayub Amareer Cali iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 252511700. Aadan Mayow Jibriil oo jooga Baydhabo waxa uu baafinayaa Madiina Macalin Xasan. Waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Sacuudiga 1985. haddaba haddii ay maqlayso Madiina ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Aadan Mayow iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baydhabo. Xafiido Bashiir Aadan oo joogta Luuq waxa ay baafinaysaa Xasan Bashiir Aadan. Waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2015. haddaba haddii uu maqlay Xasan Bashiir Aadan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Xafiido Bashiir Aadan iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere. Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Sheekh oo jooga Baydhabo waxa uu baafinayaa Faadimo Cabdiraxmaan Sheekh Axmed. Waxa ugu wardambeysay 2017. haddaba haddii ay maqlayso Faadimo Cabdiraxmaan Sheekh Axmed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Cabdiraxmaan Sheekh Axmed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baydhabo. Nuuruddin Axmed Mawlid oo jooga Luuq waxa uu baafinayaa Axmed Cali Mawlid. Waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Botswana sanadii 2004. haddaba haddii uu maqlay Axmed Cali Mawlid ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Nuuruddin Axmed Mawlid iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere. Cibaado Macalin Cabdi oo joogto Baydhabo waxay baafinaysaa Aadan Macalin Cabdi. Waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2019. haddaba haddii uu maqlay Aadan Macalin Cabdi ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cibaado Macalin Cabdi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baydhabo. Xaliimo Xasan Muuse oo joogta Luuq waxay baafinaysaa Maalik Mawlid Muuse. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Koonfur Afrika sanadii 2015. haddaba haddii uu maqlayo Maalik Mawlid Muuse ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Xaliimo Xasan Muuse iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 252612077. Cabdi Xaashi Cabdi oo jooga Baardheere waxa uu baafinayaa Milyuun Faarax. waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Australia 1999. haddaba haddii ay maqlayso Milyuun ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Cabdi Xaashi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere.
daadir axmed nuur oo jooga beled xaawo waxa uu baafinayaa muxiidiin faarax nuur waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Syria sanadii 2012 haddaba haddii uu maqlayo muxiidiin faarax nuur ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo daadir axmed nuur iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 2561 buulle geedi cali oo jooga baled xaawo waxa uu baafinayaa cabdiraxmaan geedi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Jabuuti 2005 haddaba haddii uu maqlayo cabdiraxmaan geedi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo buulle geedi ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beled xaawo maryan cali siyaad oo joogta beled xaawo waxa ay baafinaysaa farxaan siyaad cabdi waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadii 2010 haddaba haddii uu maqlayo farxaan siyaad cabdi ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo maryan cali siyaad iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 2576 nimco nuur xasan oo joogto Baardheere waxay baafinaysaa Bashiir Cilmi Nuur waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Mareykanka 2003 haddaba haddii uu maqlayo Bashiir Cilmi Nuur ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo nimco nuur iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheere Khadiija Ibraahim Cali oo joogta Baydhabo waxay baafinaysaa Cabdisalaam Maxamed Yuusuf waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2005 haddaba haddii uu maqlayo Cabdisalaam Maxamed Yuusuf ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Khadiija Ibraahim Cali iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baydhabo ama telefoonka nambarkiisu yahay 2526892465 mursal nuur caafo oo joogo Baardheere waxa uu baafinayaa Zakariya Axmed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Suudaan 2011 haddaba haddii uu maqlayo Zakariya ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo mursal nuur ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheere maxamed maxamuud faarax oo jooga Baardheere waxa uu baafinayaa Deeqa Bare Maxamuud waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Norway sanadii 2010 haddaba haddii ay maqlayso Deeqa Bare Maxamuud ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo maxamed maxamuud faarax iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 25269691 cabdi xaashi cabdi oo jooga Baardheere waxa uu baafinayaa Caasho Cismaan Jaamac waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Sacuudiga 2000 haddaba haddii ay maqlayso Caasho Cismaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo cabdi xaashi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheere asad cabdulaahi aadan oo jooga beled xaawo waxa uu baafinayaa Faadumo cabdulaahi aadan waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2003 haddaba haddii ay maqlayso Faadumo cabdulaahi aadan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo asad cabdulaahi aadan iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 25265813 Faadumo aadan oo joogta magaalada Muqdisho waxay baafinaysaa Abshir Kaarshe Cabdirasaaq iyo Cabdiraxmaan Kaarshe Cabdirasaaq waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan dalka Ingiriiska haddaba haddii ay maqlayaan Abshir iyo Cabdiraxmaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo hooyo Caasho aadan ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 0698948836 cabdi xaashi cabdi oo jooga Baardheere waxa uu baafinayaa Cabdi Sharma Arki Cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Australia sanadii 2012 haddaba haddii uu maqlayo Cabdi Sharma Arki Cali ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cabdi xaashi cabdi iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 2526555444 Gamaano Cabdi Caydiid oo joogto Baardheere waxay baafinaysaa Yaxya Cabdi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya 2012 haddaba haddii uu maqlayo Yaxya ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Gamaano Cabdi Caydiid iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere baafintina maanta wanaag intaas way mahadsan yihiin asxaabtii baafinta idaacaddii gabagabadeedii ayaan soo gaarnay balse inta aanan ka bixin wararkii ugu waaweynaa idaacaddan sii dhammaanaysa aan mid iyo laba waxaan ka gaaro idinla socodsiiyo
magaalada boorame gudoomiyaha gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka Awdal aan iraahda ayaa waxa uu sheegay in ilaa 15 qof ay ku dhinteen daadad iyo roobab dabeelo wata oo ku dhuftay 24 saac ee la soo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka Awdal siiba degmooyinka Lughaya iyo Baki wararku waxay sheegayaan in deegaanada qaarkood ay daadad ku la tageen beero iyo waliba saricii iyo agabkii beerahaasi ku yiilay wahagaag idaacadii intaasaan ku soo qatimaya tan iyo kulan dambe waxaan idin leeyahay inta laga gaarayo galabta 5 galabnimo oo mar kale aan hawada ku kulmi doono anigoo Cabdirasaaq Catoosh ah Xasan Cali Geelo barnaamijka soo saaray Cabdiraxmaan Caddo warka akhrinayay dhammaan bahdii BBC isku duwan oo idin leh nabadgelyo